الله دور قصة أي أن نسيني وللعبرة قصدها أن إني شيء كتب بك قرنت وقصص واقعية أو دعي هل قصة أنكو شيء أو وناق إنو مرنا أولومين هوين العقل هيت أو تأجرد هيت بابور كيغا إسكودتي طريق بمريس ووقت مغربة مغرب كاسودو dhulka roob baa isa soo haysta dhulkuu soo madoobaanaya magaalada way ka baxsan tahay lacag fiicanna way wadataa waana haweeney taajirada dariiqii ay socotay baabuurkii baa ka kharaabo ka joogsaday baabuurkii ayaa ka kharaabo oo ka joogsaday dariiqa dhexdiisii way istaagtay dhinac bay u joojisay waxay doontay intuuna dhulku ku madoobaan intuuna roobkani ku iman inay magaalada gasho inay raadsato wax baabuura oo sii qaada baabuur baa soo maray uu dhaafay xoog buu ku dhaafay baabuur kale ayaa soo maray uu dhaafay xoog buu ku dhaafay iyada oo yaaban oo roobkii uu soo tiitiixayo ayaa waxaa soo joogsaday baabuur aad u liita aad u fool xun ayaa soo joogsaday ninka wada daal baa ka muuqda waa nin soo rafaaday way shakido waxa istiri baabuurkan maad kortaa mise waad ka joogsataa maad ka joogsataa mise waad kortaa akhiiran go'aan waxay ku gaadhay intuu roobku ku di'i lahaa intuu madowgu ku soo geli lahaa inay iska raacdo way fuushay way cabsatay ninkii markay aragtay laakiin ha awlaado ha fool xumaado baabuurkiisu ha liito laakiin waxay aragtay nin edeb badan inuu yahay nin ixtiraam badan inuu yahay markii haweenaydii soo fuushay muu eegin wejigiisuu foorariyey baabuurkiisu iska watay waxa uu ku yidhi xaggeed rabtaa waxay tiri magaalada i gaarsii waa yahay buu yidhi magaaladii buu keenay way weydiiso magacaabay ku tiri aadan baa la yidhaahdaa buu ku yidhi aadan ayaa la yidhaahdaa waxay ku tiri maxaad ka shaqaysaa waxay ku tiri wuxuu ku yidhi tagsiile ayaan ahoo tagsiganaan ku shaqaystaa meel maqaaxiya markay soo dhawaatay bay tiri xaggan ii joogso waxay doonaysay lacag fiican inay siiso wuxuu ku yidhi may iska hayso lacagtaada allah kuu barakeeyo waxay tiri may inaan ku siiyo oon kuu gargaaro ayaan doonayaa may buu yidhi ilaahay dartii baan kuugu gargaaray dhibaato iyo madowgaa kaagama tegan iyo cidladaas inaan cidlada kaaga tago oon ku dayaco ayaan diidayey sidaa awgeed lacagtaada iska hayso allah ku barakeeyo waxay ku tiri may waa inaan ku siiyo waxa uu ku yidhi ma wanaag baad doonaysaa inaad ii samaysidoo lacag isiisid haa bay tiri waxa uu ku yidhi dadka dhibaataysan u gargaar wixii qof dhibaataysan ee kaa hor yimaada u gargaar ilaahay adigana uu kuu gargaariyey wassalaamu calaykum buu ku yidhi uu iska dhaqaaqay haweenaydii runtii ninkanay la yaabanayd waxay gashay maqaaxidii ayay gashay way fadhiisatay qabow baa jira roob baa isa soo haysta dhulka uu soo madoobaaday magaaladan aad uma kala taqaano xaggii bay doontay inay sharaab yar ka cabto shaah yar ka cabto kadibna ay meel raadsato oo iska seexato haweeney baa u timid waxay ku tiri maxaad rabtaa aan kuu keenaa waa u sheegatay dalabkeygii wixii ay cuni lahayd iyo wixii ay cabbi lahayd ayaa u sheegatay haweenaydii ayaa u fiirsato waxay ku tiri waa daalantahay maxaa ku helay gabadhii shaqaynaysay ayay ku leedahay maxaa ku helay gabadh yahay gabadh daalan baad u eeg tahee waxay tiri uur baan leeyahay waxay ku tiri
dee miyaad iska nasatid, miyaad aqalkaaga joogtid, maxaad u daalaysaa, maxaad u rafaadaysaa, maxaad isku kadeedaysaa? waxay tidhi waxaanan helayn ilmahaa yar wixii aan ku dhali lahaa iyo wixii dhar aan ugu iibin lahaa iyo wixii aan ku soo dhoweyn lahaa ayaanan haysan. sidaa awgeed waa inaan shaqaysto inta aanan dhalin. waayahay bay tidhi. haweenaydii cuntadii bay iska cuntay, sharaabkii bay iska cabtay. kadibna warqaddii markii loo keenay ayay lacag ziyaado ay ugu dartay, ay ku tiri orod oo soo bixi. markii ay sarifka soo qaadaysay ay baaqiga u soo celi tiri, haweenaydii way ka kacday meeshii, warqadna way u dhigtay. waxay ugu qortay baaqiga adiga iska leh, miiska hoostiisana lacag baan kuu dhigay, waxaan doonayaa inaad ii ducaysid. lacagtaana waa lacagtii ilmaha yar aad ku dhali lahayd, ku soo dhoweyn lahayd, dhar ugu iibin lahayd, wuxuu u baahan yahay oo dhan ayaan meeshaa kuu dhigay. lacagtu haweenaydan mishaharka ay qaadato waa 6 goor oo la lalaabay weeyaan. yacni 6 bilood bay mishaharkeygii siisay oo u qadintay. allahu akbar. haweenaydii way faraxday, isla waktigiiba way oroday. ninkii mas-uulka ahaa bay u tagtay, waxay ku tiri ma shaqayn karayo, ifasax, fasax isii. sidii ayuu fasax ku siiyey, iyadoo intii yaradee baaqigii iyo lacagtii haysata ay haweenaydu ay siisay ayay la oroday. aqalkeygii bay tagtay iyadoo oo faraxsan oo bishaaraysanaysa. albaabkii bay gargaraacday, odaygeygii baa ka furay. waxa uu ku yidhi maxaa ku helay? wakhtigii waa ka soo horaysee, ma dhalmadii baa timid? may bay tiri. ilaahay faraj buu ina siiyey, lacag aan ilmaha ku soo dhoweyno oo wax ku iibsanno ayuu ilaahay ina siiyey. aadamow, haweenay barakaysan ayaa lacagtaa isiisay. aadan ma garateen? aadan waa kii tagsiilaha ahaa, aadan waa kii u dardaarmay haweenaydeen ee ku yidhi qofkii dhibaataysan u kaalmee. haweenaydii wanaaggii uu u qabtay, waxaa islaantiisii ayuu wanaaggii haleelay. khayrkii xagganu ka soo baxay. khayrku marna ma dayacmayo, ilaahay kuma hoojinayo. ilaahay waa wanaag iyo khayr ayuu kula doonayaa. haweenaydaasi wanaaggaa odaygaygu u sameeyey xaggana ka heshay. ninkaa rafaaday tagsiilaha ahaa ee haweenayda wanaagga u sameeyey ayuu ilaahay culayskii kaga qaaday. axibatii fillaah, qisadaasi waxaan ka faa'iidaysanaynaa inay cibro iyo waano ay ku jirto. waxaan ka faa'iidaysanaynaa inaa wanaaggu uuna marna lumayn, khayrka inaad heli. hal qiso ayaan kugu daray qisadaas. magaceega waxaa la yidhaahdaa aljazaau min jinsi alcamal. aljazaau min jinsi alcamal ayaa la yidhaahdaa. waxaa jiray nin haweenaydiisu la noolaa, laakiin wuxuu ahaa nin dhib badan buu ahaa, nin rabshad badan ayuu ahaa, nin wuxuu ahaa mar walba haweenaydiisa dhiba ayuu ahaa, u garaaci jiray. haweenka in la garaaca ma aha, haweenku waa bashar. nebiga calayhi الsalaatu wassalaam markii loo sheegay rag baa dumarkooga garaaca, nebigu waxa uu yidhi ma ulaa'ika bikhiyaarikum, kuwaasi kuwiina waa wanaagsan ma aha. nebigu waxa uu ihi khiyaarukum, kuwiina wanaagsan. khayrukum waxa weeye khayrukum liahli, kareerkiisa u fiican ee u naxariista ee u dhibriya, kaasaa ugu khayr badan buu ihi nebigu salى اllahu عalayhi wasalam. wa anaa khayrukum liahlii, xagga ehelkiisa markii la eegana anaa inigu khayr badan buu ihi nebigu calayhi الsalaatu wassalaam. dumarka waa in la karaameeyo, in la garaaco oo la dilo, in loo qaato ma aha. dumarku wanaag iyo khayr bay leeyihiin. diintu siday ka yeeshay waa in laga yeelo. diintu wanaag iyo sharfin iyo karaamo iyo inay wanaajisay
ayaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga lagu sheegayaa sala allahu calayhi wasalam. ikhwatii fillaah, ninkani haweenaydiisuu la noolaa, laakiin si xun ayuu ula dhaqmi jiray, si adag ayuu ula dhaqmi jiray. dhibaato badan ayaa ka soo martay. maalin maalimaha ka mida sidii caadadiisa ahayd way iskhilaafeen haweenaydiis. ninkii iyo haweenaydiisu way iskhilaafi karaan, laakiin si degan baa loo xaliyaa, si degan ayaa arinta loo dhammeeyaa. haweenaydiisii bay iskhilaafeen, si adag ayuu ula dhaqmay. ul adag bud buu qaatay, budkiibuu madaxa kaga dhuftay haweenaydiisii. way dhimatay. haweenaydii way dhimatay. muu doonayn inuu dilo, nafta inuu kaga qaado muu doonayn. waan edbinayaabuu islahaa, laakiin meel xun buu kaga dhuftay cadhadii. haweenaydii way dhimatay, dhulkay ku dhacday iyada oo meyda. muxuu samayn? khatar buu galay, dhibaatuu la yimid. qof muslim buu dilay, haweenaydiisii buu dilay. siduu u qarin karaa marka? waxa uu bilaabay inuu guriga ku xidho, u baxo, uu raadsado qof qaraabadiisa ah, qof u dhow, uu sirtiisa uu ku aamini karo. wuu socday, mid ay wax isku yihiin, uuna saani u garanayno qaraabadiisa ah, ayuu meel la fadhiistay. kadibna uu la tashaday. wuxuu yidhi, arrin baan kugu aaminayaa walaalkayow. arrintaa waxaan kaa doonayaa inaad ii qarisid, inaad ii asturtid, inaad ra'yigaaga isiisid, inaad ila telisid ayaan doonayaa. maalinta waa maalintaan kuu baahnaa. waxa uu ku yidhi, ii sheeg. wuu u sheegay, haweenaydaydii waan isdiidnay, waan iskhilaafnay, waxaan is idhi yaro edbi, bud baan u qaatay, waan ku dhuftay, way ku dhimatay. haweenaydii aqalka ayuu meydkaygii ii dhex yaalaa. maxaan sameeyaa niyahow? ila tali, tala fiicanna isii aan ku badbaado. xadhig ma doonayo, dil ma doonayo, ceeb ma doonayo. waxaan doonayaa inaan ka baxo dhibaatada aan ku dhacay. seen uga baxaa? wuu fikiray, shaydaan baa la fikiray, wuu la rogrogay. baatil buu ugu gargaarayaa. ilaahay waxau leeyahay, baatilka isku gargaarina, wanaagga iyo allah ka cabsiga hal isku gargaaro. kadibna waxa uu ku yidhi, war ra'yigayga aan kuu sheego, waxaad yeeshaa, waxaad raadisaa wiil yar oo qurux badan raadi. kadibna ninkaasi soo dhowey wiilkaa yar, aqalkaaga keen, kadibna dil, kadibna qoorta ka go, madaxiisa duldhig. waxaad ka raahdaa, waxaan ugu imid haweenadayda isaga oo xumaan ku samaynaya ayaan u imid. kadibna waan adkaysan waaye, sharaftaydan ku dhintay, waan difaacaya sharaftayda iyo cirdigayga. sidaasaan u dilay wiilka yar iyo haweenadaydiiba waan israaciyey. sidaa dheg, taasaad ku badbaadi kartaa. arrintii ninkii waa ku farxay. waxa uu ku yidhi, wallaahi fikra cajiiba ayaad ii timid, ayaad ii keentay, khayr allah ha ku siiyo. u dhaqaaqay, meel buu fadhiistay, wuu fikirayey. kadibna wuxuu arkay wiil yar oo dhalinyara oo xoog badan oo nicmadu ka muuqato ayuu arkay. kadibna kii yaraa buu ka hortegay, wuu salaamay. ka yar isma yaqaanaan, si fiican buu u salaamay. kii yaraan wuu yaaban yahay, laakiin waxa uu ku yidhi, warniyahow kaalaan isbaranne, waan ku soo dhowaynayaa, aqalkayga kaalay. wuu jiiday, wuu adkaysan waayo, yarkiina wuu yeelay. sidiibu ku raacay, aqalkiisii buu tegey. kii yaraa buu yidhi, sharaabiyo waxbaan kuu keenayaa. kadibna albaabka ku xidhay, kadibna madaxu ku dhuftay, wuu dilay, naftu kaga qaaday. kadibna qoortu ka gooyey. kadibna meydkii haweenaydiisa ayuu qoortii duldhigay. kadibna sidaasuu ku baxay. dadkiibu u dhawaaqay, qaraabadeediiba u yeedhay. waxa uu ku yidhi, inantiinii waan dilay, kaalaya meydkayga qaata. way khaayinta, wiil yar bay soo kaxaysatay, xumaan bay gurigayga ku samaynaysay.
iyadii iyo isagiiba waan dilay. kaalaya saasuu rabaa, arrintaasi ayuu rabaa inuu ku yidhaahdo. laakiin intuuna arrintaasi uuna tolkeed uuna gaarsiin, intuuna ku dhawaaqin arrintaasi, waxa u goostay inuu saaxiibkii ninkii fikraddan siiyey inuu u yeedho, inuu yidhaahdo waad ku mahadsan tahay, arrintii waan yeelay. waa kan ninkiiba albaabka ku soo garaacay, wuu u yimid, way isula dhukadeen, wuu ugu mahadiyey. fikraddaadii aad baan ula dhacay, maskaxdaadii waxay ahayd maskax weyn, khitadii qorshihii aad ii dhigtay mid aan ku badbaaday ayuu ahaa. wiil yar baan helay, waan dilay, qoortaan ka gooyey, madaxiisiina waxaan dulligay. kaalay oo arag. wuu soo galay, muxuu arkay? laa ilaaha ila allah. muxuu arkaad u malaynaysaan akhawaatii wa ikhwatii fi illaah? muxuu arkay? wuxuu arkay waaba inankiisii, kan qorshaha u dhiibay inankiisiiba weeyaan. xaggiibu ku dhacay, waa inankiisii wuxuu diiday. aljazaau min jinsi alcamal. wixii aad la timid ilaahay uu ka abaalmarin. shar iyo xumaan ayuu u qorsheeyey. wuxuu doonayey inuu dhiiggaa u baabi'iyo. wuxuu doonayey inuu wiil yar oo beriya inuu dembigiisa uu isaga u saaro. laakiin ilaahay isagiibuu ku soo celiyey. xumaantiisii isaga ayaa laga soo muujiyey. dembigu ma qarsoomo, khaladku ma qarsoomo. dhibaatadu aad dadka aad gaarsiinaysid waa wax lagu hayo. ninkaasi ilmihiisii ayuu noqday qofkii la dilay, ee qoorta laga gooyey, ee tuhmada la saaray, ee la yidhi isagaa kufsanayey. dee ra'yiga isagaa siiyey, ilaahay xaggaasuu ka soo saaray. kamaa tadiinu tudaan. waxaad samaysid ayaa lagugu abaalmarin. ikhwatii fi illaah, weligaa qofna shar ha ugu gargaarin, xumaan ha ugu gargaarin. wanaagga dadka ugu gargaar, khayrka dadka ugu gargaar. dadka isku day inaad nicmadda ilaahay, islaamnimada, wanaagga inaad tustid, inaad khayrka ugu yeedhid. haddii kale dhibaatada hoostaada ka soo bixi. wajazaakum allahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.